caawin doona ardayda waxay ugu qaadataba odayga shaqo helay dabeetana waxay ugu gaadhay ilaa xadka maalmaha qaarkood 2 bilood isku xigta lacagtii aniga iga soo galaysay shaqada iyo lacagtii odayga ii soo diriyay biilkaygiiba aan maalmaha qaarkood $1 gurigayga ku soo hadhin on ku invest gareeyo si aan dadka ugu caawin lahaa dadana waan ku khasaarin ahaantii daawac badan oo iga soo gaadhay khasaare aad u badan ficilkii labaad baan noqday inaan anigu wax ii gooniyo samaysto dabeetana waxaan isku dayay school online inaan furto website baan samaystay waan ku guul daraystay ahaantii because qaladaad weyn aan sameeyay baa waxa ahaad waxaan ku invest gareeyay lacag $2,000 gaadhisa oo deyn ahayd dabeetana wixii markii intii horeba aan doono inaan ahaantii guusha anigu doonitaan aan u doonayay ku gaadho waan ku qasbanaa xaaladan galay qaladan sameeyay iska saaro waxaan galay ahaantii xaalad aan aad u niyad jabay because qaladkan galay qalad kalan ka sii dambeysay qalad kale igu riday business baa la ii dhiibtay la igu aaminay 2364 shay inaan iibiyo ahaantii businesska wuxuu igu soo hagaagay goor aan niyad jabsanaa on broke ahaa zero ahaa niyad qalbiga ay jabnaa ahaantii because khasaare aad u weyn baan ka soo kaabanayay anigoo rajaynay businesskaasina inuu khasaarahan galay iga kaabi doono laakiin khasaare kale iga soo raacay oo ay deyn kale igu korodhay waxa igu lumay niyad jabkii iyo dibtii aan ku jiray aawadeed $618 shay baa igu lumay dabeetana bartii waxa iga raacay $1,500 oo kale dabeetana waxaan isku dayay xaflad inaan abaabulo aan rajaynayay in deyntii dib iga celin doonto xafladda in badan idin kamid waxa laga yaabaa inaad aragteen iclaan amba promotional video aan u sameeyay Hargeysa Ciid event aan bixiyay waan ku guul daraystay waxa iga raacay $1,300 oo kale deyn ah dabeetana talaabo kale aan la yimiday ahaantii waxaan isku dayay waxyaalo badan inaan sameeyo so dariiqii guushu markii hore doonitaan bay igu abuurmay dabeetana go'aan bay iga dambeeyay dabeetana ficilo badan oo qaldan bay iga dambeeyay laakiin ficiladii wax baan ka faa'iiday ahaantii iyo xaaladahan galay waxay ii diyaar gareeyeen dariiqii dhabta hay sugayay darajadii iyo meeshan hiigsanayay aanan islahayn yani gooro ama sanado dhow baad gaari doontaa amba muddo dhow baad ku gaari doontaa bay ahaantii xaaladahan maray ii diyaar gareeyeen qof ahaan ayay i dhiseen intii hore waxay doonitaan iga ahaataba inaan guulaysto waxaan galay xaalad ah yani midig aanan u kici karayn sababta xal baan ka soo quustay bidix aanan u kici karin sababta xal baan ka soo quustay dib uma noqon karayn sababta waan ku jiray xaaladii horena uma socon karayn sababta waan niyad jabsanaa yani xal kasto on haystay waan ka quustay I was broken ahaantii aad baan niyad jabsanaa waxay noqotay dabeetana inaan xalkeeda galo sidaan naftayda u badbaadin lahaa si aan caafimaadkayga u badbaadin lahaa because 10 qasaaro ayaan 3 bilood gudahood la kulmay يعني qasaarooyinkii daawacyadii iyo dhibaatooyinka ay soo gaarsiin waxay ahayd in la igu yeesho deyn $1,173 ah si aan u bixin aan garanayn because xal kasto isku dayay inaan tii hore ku hagaajiya dib kale igu soo biirinay dabeetana waxaan galay xaalad aan ku qasbanaa in noloshayda wax dhab ah ka bedelo isbedel dhab ah la yimaado waxaan galay xaalad ah inaan isweydiiyo maxaan qalday on dabeetana noloshayda inta noolaa oo dhan intaan dib u xisaabtamo on qalad yar oo kastoon sameeyay dib u saxo si aan xaaladan ku jiro uga baxo si aan naftayda u badbaadiyo caafimaadkayga u badbaadiyo guurkayga u badbaadiyo sumcadda bulshada kulaha u badbaadiyo laakiin waa dariiqaas aan isku soo kaabiyay dariiqa guushii ii diyaariyay anigoo ahaantii ogeyn waxaan bilaabay inaan qaladaadkayga saxo waxaan bilaabay inaan xirfado aanan haysanin soo korarsado waxaan bilaabay inaan qorsheeyo waxaan bilaabay inaan hadaf samaysto noloshayda in badan kamid ah bilaa hadaf baan ku noolaa hawlo badan baa ii hirgalay alxamdulillah 20 jir baan ahay ahaantii 20 jirada ila da'da ah ee wadankaygu la nool waxyaalo badan oo u hirgalin baa ii hirgalay bilaa hadaf bayna iigu hirgalan because nolosha inta nool hadaf maan samaysanin 16 jir baan ku biiray bahda saxaafadda oo ku noqday wariye radio Hargeysa aan u shaqeynayay qaybta luqadda Englishka 17 jir xaas baan ku noqday 18 jir macallimad baan ku noqday 19 jir hooyan ku noqday hawlo maamul baan qabtay 20 jir qanacsataan noqday school gaar baan samaystay entrepreneur baan noqday bulshada wax qabadyadeeda xoog baan uga qayb qaataa runtii waxaan ahay qof ka soocan oo ka suntan dadka la midka ah laakiin balu fiirso waxa soo dhan wax qabadyadaas oo dhan waxay ii suurta galeen anigoon hadaf lahayn waxaan bilaabay inaan nolosha hadaf ka samaysto waxaan ku qasbanaa
يعني obviously حالتان قالين wax ka bedelo dabeetana ahdaaftan samaystay waxay gaadheen ilaa iyo xadka ah inaan qolalkii gurigayga waraaqo waaweyn ku wada qoro on hadaf kasta isweydiiyo maxaad u doonaysaa inaad hadafka ku gaadhid on asbaabta ku qoro bartan on gidaar kasta ku dhajiyo 3 waraaqood amba 4 waraaqood amba 5 waraaqood ku dhajiyo kelmado dhiirigelin ah naftaydii yani dib u tababaro ahdaaftii baan isku diyaariyay waan qorsheeyay run ahaantii waxaan xirfado badan oo iga dhibnaa ayaan kororsaday seminaaraan qaatay naftaydan koriyay shakhsiyadaydan dhisay awoodahaygii baan dib u baadhay waxaan isku dayay dariiqa saxda ah inaan helo markaan intii oo dhan isku soo koobsaday aan hadaf samaystay hadaf aad u qeyr macquul ah marka loo eegay xaaladan ku noolaa hadaf waxaan ka dhigtay inaan tababaro nololeed noqdo bisha October in badanna waan doonayay laakiin ficilkii baa iga maqnaa run ahaantii iyo kartidii yani caajis bay ku jiray because waxaan ahaa qof hami leh laakiin aan hadaf lahayn hadaf waxaan ka dhigtay inaan tababaro nololeed noqdo bisha October anigoon weligay tababar nololeed bixin inaan bisha October tababarkii igu horeeyay bixiyo bisha October gudaheedna ugu yaraan 3500 qof tababar siiyo so xaaladan ku jiray marka loo eego qeyr macquul bay ahayd dabeetana hadafkii baan qorsheeyay hadafkii baan istiraatiijiyad iyo xaalad u la yimiday hadafkii baan asbaabtii ugu kaliftay inaan sameeyo gurigayga gidaar kasta ku dhajiyay markaan hawshaas oo dhan isla baagsaday aan hadafkii diyaariyay aan qorsheeyay aan wax kasta sameeyay ayaan run ahaantii dareemay waxay kale dareen ah inaanan diyaar ahayn waxaan ogaaday inaanan hadaf xaqiijin karayn oo qorshihii xataa haddaan saxay xataa haddaan gidaaradii ku dhajiyay xataa haddaan naftaydii dhiirigelin badan siiyay xirfadihii la yimiday anigu istisay inay weli wax iga maqnaayeen waxaasna wuxuu ahaa run ahaantii maskaxdayda diyaar uma ahayn inay hadafka xaqiijiso sababta maskaxdayda waxay kasoo kaabatay khasaarooyin aad u badan khasaarooyinkaasi waxay bilaabeen inay aaminsiiyaan inaan ahay qof khasaaro u samaysan waayo 3 bilood gudahood ayaa talaabo kasta isku day inaan qaadaba aan ku fashilmay 3 bilood gudahood baan 10 failure igula soo darsan dabeetana waxaan aaminay inaan laguba talagelin inaan anigu guuleysto waxaan aaminay inaanan hadafba xaqiijin karayn waxaan aaminay baqasha ay gashay run ahaantii dabeetana waxay iga dhibnaa wuxuu noqday inaan maskaxdayda u diyaariyo oon u tababaro sidaan ahdaafdayda u xaqiijin lahaa because run ahaantii wax kasta oo consciously aan u diyaarin lahaa amba si waaci ah aan u diyaarin lahaa waan dhamaystiray laakiin waxaa iga dhibnaa intii ugu badnayd laa waacigii amba subconsciously inaan isku diyaariyo waxay igu qaadatay inaan maskaxda bini'aadamka wax ka ogaado iyo qaabkii u dhaqmayso waxaan bartay daraa'iq badan amba processyo badan oon dib maskaxdayda ugu tababaray aniga oo maskaxdaydii ka tirtiraya aaminaadii aamintay inaan ahay khasaare dabeetana qof cusub baa soo baxay maryan cusub baa soo baxday anoon weligay hadaf samaysanin baan hadafkii ugu horeeyan sameeyo ee xaqiijismay welibana anigoon hal khasaarana kala kulmin anigoon weligay tababar nololeed bixin baa tababarkii koobadan bixiyay 120 qofan u bixiyay successna u noqday dabeetana istiraatiijiyadii iyo xaaladii baa hab ii noqotay usbuucan imika dhamaaday waxaan tababar siiyay 135 qof marka loo geeyo 125 qof ee hore run ahaantii ujeedadu waxa weeyaan sababta aan idinla wadaagayo waxaasoo dhan waxay tahay dariiqa aan guusha ugu mariyay iyo socdaalkaas wax badan baa iiga faa'iiday markaan ka hadlo caashiqii darnaa aan u qaaday inaan bini'aadamka caawiyo aan run ahaantii fiiriyey xaaladaha iyo dhibaatooyinka bulshadeena ka taagan waxaan go-aan ku gaadhay inaanan guusha iyo dariiqa aniga ii saxmay keligay mari doonin run ahaantii markaan xasuusto 2 bilood xaaladii aan u adkeysan waayay ee ahayd run ahaantii inaan dayn galo inaan dadka ila midka ah wax weydiisto inaan gaajoodo inaan gurigayga marka qaarkood dib u baadho firaashyada oon ka eego lacag waxaa aada ii damaqda inaan ogaado inay hooyooyin badan 8 caruura sida ku dhalayaan qaarkood 12 sano xaaladda ku jiraan
iyagoo run ahaantii aad ay u dhibayso laakiin aad moodid haddana inay raali kaga noqdeen xaaladii ku jiraan caqiidooyin amba beliefs ay bulshadeena ku noolnahay aaminsiisay darteed bulshadeena waxay dumarka aaminsiisaa gabadhu hadday nin leedahay amba hadday xaas tahay inaanay shaqo tegin gabadha shaqo tagta iyadoo ninkeedu shaqaynayana ay ceeb usoo jeediso ninkeeda amba ay tahay qof iimaan la anaan run ahaantii taa la kulmay waxaan garanayaa dad badan oo inta ii imaadan igu dhaahda iimaan la-ida xagee lagaa tusay iyo kayaabka guri hantiyaad ku jirtaa intaasoo $100 baad bishii qaadataa ilmo quraataad haysataa mad gurigaaga iska fadhidid aayar waxaan garanayaa meelo badan oo tago dad igu dhaahda odaygaaga miyaanu kuu shaqeynin miyaanu kuugu filnayn waxaan garanayaa dad badan oo rumors amba wax iga sheego yidhaahda odaygeedu ma shaqeeyo dabeetana saasay u shaqeysataa so waad arki kartaan fikradaha qaldan ee bulshadana dumarka aaminsiinayso ugama jeedo dumarku inay soo banbaxaan guryahooda kasoo baxaan ay wada shaqo tagaan run ahaantii kani waa dariiqadayda hooyooyin badan oo kalena dariiqadooda iyo xaasas badan oo kale way tahay inay shaqo tegi karaan oy aqoontooda iyo xirfadahooda dadka uga faa'iideyn karaan laakiin hooyooyin badan oo dhibaataysan baa iyagoon ku qasban inay guryahooda ka baxaan haddana naftooda wax u tari kara wax qabsan kara hadday wax qabsan lahaayeenbana ay diidayaan ceebta ay usoo jeedi lahaayeen raggooda amba ay diidayaan hadalka bulshada yacni ay ku keenayso hooyooyin badan baa hadday wax qabsan lahaayeen aan garanahayn dhinacay ka bilaabaan iyagoo run ahaantii rajo ka quustay amba raali kaga noqday xaaladahay ku sugan yihiin hooyooyin badan waxaan garanayaa aaminsan ilmahaygan marka hore korinaya oon waqtigayga u huraya dabeetana ilmahayga markaan koriyo isaga biritoole waxay gu soo celin doona markuu heer gaadho laakiin yaa u ballan qaaday hooyadaas inuu ilmaheedu heer gaadhi doono yaa u ballan qaaday inuu horumar heli doono iyo mustaqbal tayo leh maadaamaanay nafteediiba horumar u ogolaanaysa carruurteeda inay mustaqbal tayo la siiso gaadhsiinin oonay u ogolaanin waxyaalaha run ahaantii aadkay dhabo waxa weeyaan inaan xasuusto in arday badan oo xaaladan ku jira iyo xaalado kaliita ku jira arday badan oo duruuf waalidkood ku sugan yihiin dartood la dhuumanaysa ardayda kale iska takoortay nafahoodii u eedeeyey moodaya inay ceeb tahay oo xaggay ardayda ka faraxsan yihiin waqtiga ardayda cunayaan suuliyada ku qaadanaya iyagoo macalimiinta iskuulkooda ka dhigayaana aanay war ka haynin waxa run ahaantii aaday dhibta inay dadkeena u kala qeybsameen qaar xaaladahay ku sugan yihiin raali kaga noqday duruufahay ku sugan yihiin oo la go-aankii ay kaga bixi lahaayeen ee nolol wanaagsan ku raadsan lahaayeen iyo qaar markay horumarkii ay gaadheen raali kaga noqday oo yani keena PhD soo qaateenba masters degree haysta markuu shaqo fiican helay uu reerkiisii kafeeyey intaa ku istaago xagu naftiisa kasii korin lahaa amba bulshadii dib wax ugu tari lahaa waxa run ahaantii aada ii damaqda markaan arko qof dariiq saxan helay uu guusha ku gaadho laakiin dariiqii keligii koobsaday oon dad kale la wadaagahayn waxa run ahaantii aada ii dhibtaa inaan arko dad noloshan ku nool oo haddaan anigu maanta awoodi inaan hargeyso gaari ku dhex maro man ilaabin noloshii aan soo maray ayaamo badan baan dooxa hargeyso lug ku mari jiray man ilaabin gurigan kusoo barbaaray xusuustuu lahaa iyo noocuu eka haddaan maanta guri hagaagsan helay iyo nolol wanaagsan dabeetana waxaan go-aan ku gaadhay inaan yani horumar kastoo nafteeda gaadhsiiyo inaanan keligii koobsanin dabeetana waxaa maskaxdeyda kusoo dhacday ila gaadh guul run ahaantii in badan dadka ugu yeedhaa waa dad guul gaadhay oo marka iyagu nafahoodii ka khaas yeeleen amba ka haqab yeeleen guushii dabeetana dadka kale ugu baaqiyo leh jidkan baan maray iga soo daba maray waa kan dariiqaygiiya anigu waxaan aaminsanahay inaan dariiqii saxda ahaa iminkun ku dhacay oon dariiqii guusha helay laakiin intaan jidkaa keligii mari lahaa oon dhamaysan lahaa waxaan ka doorbiday inaan imika cid kasta oon gacanta sii qabsan karo intaan ku dhahdo inakaan jidka aanu wada marno hooyo kastoon fikir kastoo qaldan aaminsan amba bulshada ku qasabtay inay aaminto qalbigeeda ka tirtiri karo si ay nafteeda nolol wanaagsan ugu raadsan karto maanta run ahaantii bulshada wax badan kuma soo kordhin karo oo dadka duruufaysan maal uguma deeqi karo laakiin waxaan ugu deeqi karaa waxa weeyaan dhiirigelin waxaan ugu deeqi karaa waxa weeyaan waxaan uga faa'iideyn karaa hibo uu Rabbi subxaanahu wa tacaala igu abuuray
aftahanimo iyo hadalkarnimo anigoo u adeegsanaya inaan dadka quluubtoodu rajada ku yaraatay dhibta iyo duruuftay marayaan iyo qasaarooyinkii la kulmaan aawadood inaan anigu rajada dib ugu kordhiyo inaan intooda aamintay inaan guusha iyaga loogu talagelin tuso dariiqa guusha ku gaari karaan waxaan go-aanka u qaatay waxa weeyaan waxaan run ahaantii aada u jeclaystay markaan arko qof faraxsan oo dhoola cadeynaya because qof dhib soo maray ayuunbaa qiimaha dhoola cadeynta dareemi kara qof dhaawac soo gaadhin baa run ahaantii qiimaha farxadda dareemi kara iyo qof murugeysan so waxaa aada ila qurux badnaantay run ahaantii inaan arko qof dhoola cadeynaya aniga dartiiba dhoola cadeynaya amba u faraxsan amba qof qalbigiisa rajada ku yaraatay dhibta iyo rafaadku marayay iyo khasaarooyin lasoo kulmay aawadeed dabeetana aan anigu awood u yeesho inaan rajo dib ugu abuuro qalbigiisa run ahaantii waxaan jeclaystay natiijada amba saameynta uu qofka bini-aadamka ku yeelan karo qof kale markuu jeclaysto inuu dhib ka kala khafiifiyo dabeetana waxaan go-aan ku gaadhay noloshada dhan inaan u horo ciddii fikrad qaldan aan qalbigeeda maskaxdiisa ka saari karo inaan ka saaro si uu horumaru gaari karo jidkaa aniga io iftiima inaan dad badan la wadaago ciddii aan dhiirigelin siin karo rajo siin karo inaan siiyo hooyooyinka tabaalaysan inaan ugu gargaaro anigoo kalsooni ku abuuraya anigoo ku baraarujinaya inay nolosha nolol dhaanto u qalmaan waxaan run ahaantii u adkeysan la-ahay waxa weeyaan markaan ogaado macalimiin badan inaanay warka haynin ardayda xaaladeyda iyo kale amba arday xaalad ka daran ku sugan oo nusu saacaha suuliyada ku qaadanaya duruuftay ku sugan inuu ceeb moodan aawadeed isagoo macalinkii karaya inuu nusu saaco u iibiyo laakiin aan run ahaantii ka warhaynin waxaa run ahaantii aada ii dhibta markaan arko dad xaaladan ku jira iyo xaalad kasii hooseysaba ku jira dabeetana waxaa igu dhalatay inaan aasaaso ila gaadh guusha waxaan ugu iftiiminayaa dhalinyarta dariiqooyin ay hadaf ku yeelan lahaayeen nolosha hadaf sax ah u dejisan lahaayeen waxaan ku iftiiminayaa maadaaman anigu qof ahaan dhismay aaminsanahay maanta in dariiqii guushu ii hirgalay sababtoo ah aan in yar barta idinku celiya anigoon weligay tababar nololeed noqon anigoon weligay tababar nololeed bixin baa yacni diyaargarowgii xaaladahan ku sugnaa ay diyaargaraysiiyeen darteed waxaa diyaargarowgayga gaadhay ilaa iyo xadka aan maskaxdeyda ku tababaray inay guul ku sugan tahay waxaan sameeyaa meditation waxaan sameeyaa creative visualization intiina garanaysaa subconscious mindkaygan traingareeyay dabeetana anaan weligay tababar nololeed bixinin baan maalintii koowaad 125 qof u qabtay waan ku guuleystay dabeetana usbuucii ku xigtay 130 qof baan u qabtay waan ku guuleystay usbuucan waxa ay qorshaysan 240 qof inaan u qabto hadafkan dajistayna wuxuu ahaa inaan tababar u qabto 3500 qof ugu yaraan jidka kaliya tamaan helina waan ku guuleystay alxamdulilah ugumaan talagelin laakiin inaan kaligii run ahaantii jidkaa maro ila gaadh guusha waxaa noqon doonaa insha allah dariiq aan dhalinyar badan ku wacyigelin doono ku baraarujin doono because run ahaantii waxaynu ku noolnahay adduun dayac badan ku sugan waxaynu ku noolnahay adduun inta faraxsani ay yar tahay inta murugeysani ay ka badan tahay waxaynu ku noolnahay adduun hooyooyinka qaari ay nicmo ku jiraan oo dhowr dariyo kala duwan carruurtooda ay u karinayaan ilmaba wuxuu doona ay u karinayaan halka hooyo kale ay la ilmeynayso xanuunka ah dartii inay u weyday inay ilmaheeda dhibicana afka u saarto waxaynu ku noolnahay adduun carruurta yaryari ee rafaadka iyo duruufta waalidkood ku sugan yihiin ay la gabanayaan oo habeen iyo maalin la ooyayaan waan ka khashaafi jiray gurigayga inaan keeno ardaydan iskuul nahay because waxaan u haystay duruufta inay ceeb tahay caruur badan oo kale ila mid ah jira u baahan in jidka loo iftiimiyo u baahan in lagu ababiyo inay guuleystaan inay u qalmaan nolosha ku jiraan nolol ka wanaagsan iyadoo la dareensiinayo inaanay duruufta ceeb ahayn waxaanu ku noolnahay adduun keena rafaadka ku sugan la moodo amba ay u badan tahay inuu noloshiisa raali kaga noqday isagoo haddana rafaadka dhibayo laakiin la dariiqo u kaga baxo go-aankii ka guuray dadkii
waayo bulshadana maanta xaaladda ku sugantay kumay sugnaateen haddaynan rafaadka iyo xaaladahan ku jirno raali kaga noqonin in badanna waxa sababi karta asbaab kala duwan baa sabab u noqon karta caqiidooyin qaldan oo la aaminsan yahay negativity-ga amba salbiga ay bulshadu kala kulmayso ama dadkan doonaya isbedelku ay kala kulmayaan bulshada kale waxaynu ku noolnahay run ahaantii adduun dayactir badan u baahan ummad gargaar badan u baahan dhalinyar hagis badan u baahan so ila gaadh guushu waxaa loo aasaasay inuu intaasoo meeloodba wax ka qabto haddii ilaahay idhaahdo waxaan idinkula wadaagayaa xirfad kastoon ku bartay anigu dariiqaygii xirfad kasta oo ii sahashay anigoon weligii tababar nololeed qabanin inaan kalsooni u yeesho hadafka ah inaan markii koobaad tababarkii koobaad aan qabanayo u qabto ugu yaraan 3,500 oo qof waxaan idinkula wadaagi doonaa xirfadaha run ahaantii iga kaabay amba iga bogsiiyey qasaarooyinkii badnaa aan la soo darsay qasaarooyinkii 10,000 iyo $173 ee deynta ah geliyay maantana alxamdulillah aan ka dayn la ahay waxaan idin la wadaagi doonaa run ahaantii dariiqyo badan oo bulshadeena wax badan ka bedeli doonta haddii rabbiga caalamiinka ah idmo waxaan laakiin doonayaa qof kastoo idin la mid inuu guul gaadho waxaan doonayaa qof kastoo idin ka mid ah inuu xaaladdu ku nool yahay